بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaasheena ku xiran channelkani Ismaaciil Aqiila ku soo dhawaada caawa barnaamij gaar ah oo aan kaga hadlayno biidnillaahi albaari maadaama maalinta bari ah ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee ciidul adha barnaamijka waxaa marti igu ah Khalid Cali Qaasim Khalid soo dhawow barnaamijka soo dhawow waa dhawahay barnaamijka ku dhawahay dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair ciid wanaagsan waa ku dhawahay janaalka Ismaaciil Aqiila waana ku faraxsanaynaa marti ku noqdo janaalkan waana soo dhaweynaa barnaamijka insha Allah Khalidow waxaan rabaa insha Allah taala inaan wax yar ka weydiiyo bal suuqi maadaama aad ku dhex jirtay iga waran bulshadu maanta sida ay u diyaar garoowayeen munaasabada ciidul fidriga xamarweyne maraan joogay ilaa iyo bakaaraha dhankaas beerta maraan tagay inta badan waxaa arki jirnay gaadiidka oo jaam noqonayo laakiin suuqyada magaalada muqdisho dadka jaam noqonayeen oo meel la kala maraa la asanaa maadaama ay tahay beri maalinta ciidul adha ciid weyneed ama carafa si loo yaqaano haddana dadkan waxay gadanayeen dhar ay gadanayeen dadka qaar xoolihii oo loogu talagalay ay gadanayeen ilmihii yaraa hablihii wax dhan waa isdaba socdeen marka waxaa la yaabi jirnay baabuurtii oo jaam noqonaysa laakiin dad jaam waan aragnay waan gartay ka waran marka farqi noocee u dhaxeeya ciidii hore ee ciidul fidriga iyo ciidul adha sida hadda macnaha bulshada ay ugu diyaar garoowayaan marka aad ka fiiriso adi ahaan ciidul fidri iyo ciidul adha horta waa laba ciid maadaama oo ilaahay ananu muslimiin noo talagalay haddana dhaqdhaqaaq marka la fiiriyo inta badan waxaa dhaqdhaqaaq badan ciidul fidriga ciidul adhana waa dareemi kartaa waa inta badan suuqyada muqdisho taas dharka looma gato laakiin waxaa la aadaa dhanka iyo xoolaha la aadaa oo inta badan dadka waxay xoog saaraan gowracii oo loo talagalay ciidul adha ninkuu ilaah wax siiyey oo xoolo qalanay kii ariga qalay kii lo'da qalay kii geela qalay marka dhaqdhaqaaq markaa fiiriso wuxuu u badan dhanka xoolaha u badan waan gartay waa hagaag dhinaca bulshada ay ahayd Khalidow markaan kasoo dhamaano bal adigu shakhsiyan bal ka waran diyaar garowgaaga iyo markii loo eego dhinacaas ciida ما شاء الله أرتو حاول ده قروية بري إنه يفعلوا دنيا كنا نقول. وأنت بدل واسيد سومالي ده كنا سعيدة وعيد هلبك مادام وضحيات بدل الجورعي. ما شاء الله لا أم بريء أم جيل هذا بري وحنا جينا إن شاء الله. صح. راح مرجب أنا وكلك عيانو. إن شاء الله. غالي وعيرة ده كلك أفتح مادام هلب لا تهاي. bal ka waran maalintaas oo kale udxiyada iyo waxa la sameeynaya saameyn ma ku yeeshaan ganacsigeena saddexda maan u warsato ciid waa kana sana marka la fiiriyo maalmaha ciid carafo maxaa yeelay dhan walba guri kasta xoolo laga qala haddii aalaayeen shirkadihii haddii aalaayeen dadkan aan iraahdo kuwan hay-adaha qaar xataa xoolaha qalayaan marka guri kastana xoolaha ka jiro marka haddii uu agtaada xoolo laga qalay oo kii beecan cid ku imaanayso malahan marka aniga saddexda maalin waan ka gaabsanaa waxa Khalidow ugu dambeyn bal halkan hal iyo labo yaad kula wadaagaysaa farxadda ciida hal iyo labo markii loo inta badan dadka hal iyo labo dad oo ka xanaaqayaan laakiin dhammaan mujtamaca waxaa leeyahay umar Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan markale waxaa leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair وهجاج أدب ومسيا هاي كاسين وحوها خالد علي قاسم أو برنامج كينجا ما أنت عن كذا اللي إيجار كها مناسبة عيد الفطر مرتي يقولون عيد الأضحى عن إرادة هذا الهلمانكم مجرى الله يا عنكم فرحسين والعد أبغى غلطي إن شاء الله تعالى أنت برنامج كان متكيس حاجة يعني كل مداننا وأنا جالس كنت وأنا إذن لا سدا ينبدين